Hoyalay, wabalay, hoyalay, walay, hoyalay, hoy. Assalamu alaykum, sadara fargaadhin baan sabciskiisa bilaadayo dadkuna wayga sugayayaan soo eego baldhegaystoy samalow calankeennii weegaa samada iyo suubana waddankeenna saaxadiisa udgoon baan qalbigiina ku saydhay in yaraan ka sifeeyoy sabadkanan hadda joogeen ka socdaalaya maantuna waa waqooyisinteediyo soonihii birbiraade meelna suufii joogo sidka geela yaqaanoon waxda uga sokaynin jaahilaan sax ahaynoy oy qabyaaladu saaqdayo silcinaya dadkiisa muddo been ku sabaayayo dhalintiin socdaashayo ku dhammaatay saxaariyo inta suuqyada joogtee saakaan camal haynin saf jihaad u diyaara masamo arrintiisu waa gidaansan lahaynoy sabankan maantaan joognana soomaalaysu hilowdayo dunidii la socdaano sagaashameeya malyuunba sin kastaynaga yaalo inagoon soddon gaadhinba uu siyaastee danaystii dadkeenii kala saarayo inba gooni u soocayo sanadayna hodaayayo ummadda ka siraadato saacadooda dhammaatayo socon waayu xoodiyo kuwa saylac ku nooliyo mooyaalaya sinteediyo saddexdeennii maqnaaba u yaqiinsadaysaani in dalkood kala soocmin oon dantood kala soocmin oon dalkood kala soocaminay safarkaygii mideeyaan sabciyo ka sokeeyaya safarkaygii mideeyaan anna saaka bilaabaya soomaalidilkiinba soo duceeya walaandhe hooyalay walay hooyalay hoy walayay soomaalay hadalkaygiyo hawraartaydan dhegayso dalku waa mahuraano hoygayaynu gelayniyo waa hogaan xidhanaynayo waa hagow sharafeedo hanti waaye duleedo ummad loogu hagaage waa inaan hagardaamiyo hantaaqowga ka dhowrnay halina wayga canaano hurdadaynu ku raagnayo caalamkii ka habsaanaye habsan baanahay weyno hasheenii lixdamaadkii intiyo hoomka adduunka haykal weyn ku lahaydo hadalkeed soconaayaan u hanaynay dugaago haybadiin qarankeennan maanta haybinaynaaye hal haddaynu ahaano gacmaha iswada haysta waynu hawsha dhexdeenna kalgacaylku hagayno wax walo hadafkeeniba waynoo hirayaanay waynu hirayaane sidii ganya habaysano heensihee la saarayo heetiniisa cadceed dhac ama gool hilba cuurtayo kiyo hiifaya dooga duhurgeed hadhacweyniyo hadhsanaya diraaco hawa raaxa qaatay annamaansada haadashayo habsamaanu daliishayo waan ka hayla turxaana midina way hadhsanayday
boqorkii halabuurkiyo timacado hadalkiisiyo hawrartuu tirinaayo ilaahay badu siiyeyba horaba waayo u sheegaye inta reer hebeloobiyo reer haraati dameeriyo inahayba sacleegiyo qurunkoos milanayno inagoo hana qaadniyo hagaagteenu ka dheerdhe hooyalay walay hooyalay magacaygu waa hal abuur farxaan ismaaciil maaltim cadde dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan ku noolahay aan idin kala hadlayaa aan ku noolahay magaalada Hargeysa Soomaalida maanta waxa haysata dhibaatooyin aad u fara badan dhibaatooyinka waxa ka mid ah meelaha qaar in dadkii dhalinyaradii aan fikirkooda cabiri karin iyo dhibaatooyin aad u fara badan oo kale la isugu daray waxaan ka mid ahay dhalinyarta ka mid ah dhalinyarada la caburiyo waxa jirta aniga inaan muddo bil ah aan xabsi ku jiray oo aan u mutaystay xabsigaasna aan ugu jiray inaan aragtidayda iyo waxaan anigu aaminsanahay iyo fikirkayga iyo waxaan qabay aan sida quruxda badan loo arkayo aan u hadlo taas waxay sababtay in la igu yiraahdo hadlin waraaqaha arkaysan la iga saxeexo suldaankayga iyo reerkayga laga saxeexay inaan hadli karin oo aan waxba oran karin aanan anigu fikirkayga haba yaraatee aanan cabiri karin sida awoodeed ana waxaan go'aansaday in aan suldaankayga cumaamada ka ridin bal aan u ambabaxo oo aan tago meel maxaan ku dhaafay fikirkayga iyo waxaan anigu aaminsanahay saxda oo hadlayo aan ku cabiri karo insha Allah halkan waqtigan idinla hadlayana insha Allah safar baan insha Allah safarkayga gabaygaas aan idin sheegayo dhulka Soomaaliya oo dhan ku mari doona insha Allah mar haddaan meesha maxaan ku dhahay caynkaas tahay qofku dhalinyarta aan fikirkiisa cabiri karin waxaan go'aansaday inaan uga batago oo aan aado meel aan fikradayda iyo waxa quruxda badan leh anigu jecelahay aan maxaan ku cabiri karo fikirkayga imigana safarkayga caawa ayaan bilaabay hadii Ilaahay raahdo waxaan ka soo bilaabay marka hore Boorama wajahna Gibiley Hargeysa caawa jooga oo niyadna garaw uga sii baxay insha Allah hadii Ilaahay raahdo nin qof walba halka uu ku dhashay uu jecel yahay anigu maanta waxaan kulley Soomaali magacyo loo wada bixiyay dalkii Soomaali magacyo loo wada bixiyay Soomaaliland maanta hadda ku noolahay Soomaaliland waxaan maxaan ku raahdaa ganacsi baan ayaan ku leeyahay waxaan ku leeyahay maxaan ku raahdaa qoys baan ku leeyahay halkii aan ku dhashay carruurtidii joogan oo oorideedii joogto oo hooyadii joogto oo maxaan ku raahdaa hantideedii taalo maxaan ku raahdaa inaan ku noolaado maxaan ku raahdaa qof kasta uu dareemaya kulley maxaan ku raahdaa wuxuu ka jecel yahay inuu san jirin laakiin taas mid taa waxa igu qasbaysaa waxay tahay qof maxaan ku raahdaa hadii la leeyahay waa qof xabsi ku jira qofna xabsi inuu ku jiro uma adkeysan karo oo taas aniga maanta ay haysata dhalinyaro aad fara badan way haysataa qaar ba xabsiyada ugu jira maanta waxa jirta maanta dhalinyaradii wax mustaqbal maanta ku haysata ma jirto inay way tahriibtay oo badaha ku daadatay iyo saxaraha ku dhamaatay inayna suuqyada Hargeysa iyo magaalooyinka kale ay bilaa camal la joogaan inayna hoostaasi ka wada guuxaysa waxay sameyn doontaba hoostaasi ka wada guuxaysa kala doorka u baxan dhibta cid ay haysataa waa dhalinyaradii Soomaalida dhalinyarada hablo iyo dumar iyo rag bay midoobaan dhibaatadan haysata ay ka midoobaan ay iska dul qaadaan nimankan maxaan ku raahdaa burcada siyaasiyiinta sheeganaya maxaan ku raahdaa intay dalkoogii burburiyeen maantana raba inay mustaqbalkeena ay burburiyaan doonayaan